dhanka kale la taliyaha wasiirka arrimaha dibadda dalka Soomaaliya mudane Shafiiq Yuusuf Cumar ayaa ka hadlay xaaladda Itoobiya iyo arrimaha geeska Afrika. la taliyaha waraysi gaar ah siiyay wakaaladda warbaahinta OBN ayaa kulan ballaaran la qaatay wariyaha OBN-ta Maxamed Xasan. la taliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale sheegay go'aanka uu qaatay ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ee ka dhanka kooxda argagixisada iyo reer galbeedka inuu ku saxsan yahay dhammaan muwaadiniinta dalka Itoobiyana looga baahan yahay inay xoojiyaan taageerada dawladda iyo ilaalinta masiirka dalka maadaama dalal badan oo Afrika uu ku baraarujiyay in la iska caabiyo faragelinta reer galbeedka. waa arin muhiim ah waxa ku qasbay markuu arkay reer galbeedku inay moraalka ka dilayaan muwaadiniinta ayaa isaguna wuxuu ku qasbay inuu naftiisa inuu huro oo dagaalka tago dabcan qof dagaal tago waad garanaysaa wax walba uu sugaya isla markiiba waxa isbedelay 360 wax isbedeshay beentii reer galbeedka la ogaaday moraalkii muwaadiniinta iyo ciidanka kor u kacay bahaliina waa quraanjadiina waa la xaaqay markii hore awood ma jirin media un baa la xagay joogan midda kale marka arintu ay noocan oo kala gaadho waxaan u maleynayaa Itoobiya taariikh bay u leedahay waqtigii Adwa waqtiga jir magaciisa ma aqaano markii arintu adkaatay isaga ayaa furinta line ka tagay marka waa la jabiyay Talyaanigii haddana waa tii oo kaloon tii taariikhdii un baa soo celisay maadaama ay waxa TPLF waxa la socdaa jaanib waxa la soo ku cadaana waa afran marka missionaries maadaama ay la socdaan moralka inuu siiyo iyo isagu sacrifice sameeyo ciidamadiisa dhimay uu siiyo waxay ahayd wax aad u wanaagsan oo dabcan loogana dayan doono inaan madaxda Afrikaanku inaysan xukun kaliya fiiranin laakiin ay la qaybsadaan dhibka ku dhacay dadkooda taas si wanaagsan maxamed mahadsanid horta dadka shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan waxaan UN la leeyahay waxa ka horeeyay wax la yiraahdo League of Nations waa lagu heshiin waayay markii dalal gooni ay u adeegeen sidan hadda UN tuwaag hor waxay aan jirtay waxda ku dhaxay WHO oo noqoto ama UNESCO oo noqoto hadda waxay noqotay tools wax ay isticmaalaan reer galbeedku say doonaan danahooda kama hadlaan dalka dictator ku jiro oo dhibaato la geesa haday la socdaan reer galbeed kama hadlaan Itoobiya waa sidoo kale waxa la wada arkay la maqlayay dambiyada ay geesteen kufsiga ay geesteen shacabka ay dileen kaniisada ay burburiyeen masaajidada ay gubeen ayaa la arkay maysan hadal marmayna hadal markii dawladdu ay ka soo baxday oo la yiri waxa la gaarsiinaya mucaawarada san loo eedeenin ayay yimaadeen dadku waxay u maleeyeen aan gareenin inay dagaal ku yimaadeen oo aad soo dhawaad markii la xaaqay oo ogaadeen in la jabiyay ayay wada qayliyeen waayo TPLF waxay u fulinaysay danaha reer galbeedka waxayna hadda doonayaan inuu danaha reer galbeedka u soo noqdana waxay doonayaan caawin ninkan wuxuu doonayaa inay noqdo dal awood leh oo jaarka xiriir fiican la leh Afrikana inay midowdo oo aan la soo qaybinin diin iyo qowmiyad iyo waana wax Afrika wanaagsan marka shacabka Soomaaliyeed kaliya Afrika oo dhan baa la istaagtay in yar maahin dhanka kale mas'uulka ayaa sheegay dawladda Soomaaliya inay taageersan tahay ra'iisul wasaaraha dalkan Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisa wuxuuna intaasi raaciyay Itoobiya iyo Soomaaliya inay leeyihiin cilaaqaad diblomaasi oo soo jireen mar kale iyo Maxamed Xasan. la taliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya mudane Shafiiq Yuusuf Cumar oo aan waraysi la yeelanay ayaa ka hadlay arrimaha xiriirka geeska Afrika iyo hay'adaha caalamiga ah ee faragelinta ku haya dalalka Afrika gaar ahaan geeska Afrika. Itoobiya in markaan banaanka ka joogay oo ka maqnaay iyo markaan imid horta way kala duwan tahay wixii idaacadaha laga maqlay dadka dibadda jooga oo dhageysanaya CNN iyo BBC waxay ahaan propaganda because waxaan markaan tagay sabab waxaan la wareystay qowmiyada kala duwan Tigreegi Amxaaradii Oromadii Soomaaliya dhamaan inta waan inaan hubiyo xaqiiqada maadaama qof aqoon-yahanka oo siyaasi in waxa aan dadku u sheegay inay noqdaan xaqiiqdii ma arag qof dhahayo waxaan ka soo horjeedaa dawladda way dhahayeen in la xalliyo waan rabnaa laakiin dhammaan waxay diidanayeen qaybinta Itoobiya marka xaaladdan ku sheego oo dabcan reer galbeedka ayaa caawinayay waxayna doonayeen inay qaybiyaan Itoobiya waxayna ku sii socdeen dalal kale inay qaybiyaan waqtigan hadda isbedel ayaa jiro oo awoodii marka waxay rabeen inay Afrika ay gubaysi labaad geliyaan markii hore TPLF ay joogtay TPLF inay Soomaaliya weerarto oo ogaadeen inay dhibka ka geysto kilka Soomaalida inay dhibaatadaas inay ka geysto oo waxyaalo la xasuusto maxaabiistii waxa soo dhanba waxa mas'uulka ah reer galbeedka
inay weerarto Eritrea yani dhinac walba eeg Soomaaliya nabad gudihii nabad maysan ahaan hadda markaan imid